Assalaamu calaykum saaxiibayaal. Ku soo dhawaada 5 daqiiqo. Barnaamijkii taariikhda dadka caanka ah. Waxaan uga hadli doonaa taariikhda gabadha la yiraahdo Marish Beauty. Gabadhan oo ah gabar si caan ah looga yaqaano si guud looga yaqaano guud ahaan baraha bulshada. Waxaa si caan ah looga yaqaanaa si gaar ah aaladda YouTube-ka. Halkaas oo ay ku xiran yihiin dad ku dhow 400 oo kun oo qof. marka uu intaan u galaaday tahay markii ugu horeysay aad halka soo booqatay fadlan ha ilaawina inaad subscribe saartid si aad u heshid muuqaalo xiiso badan oo la xiriira arrimahaasi iyo arrimo kale oo kala gedisan. Gabadhan magaceedu waa Mariyo Abshir Faarax. Waxa ay ku dhalatay dalka Jabuuti sanadkii 1998 bilowgiisii. sanadkii 1998 bilowgiisii. waxa ay ku soo barbaartay ama ay ka soo jeedaa magaalada la yiraahdo Burtinle oo ku taala gobolka Nugaal ee maamul goboleedka Puntland. Gabadhani waxa ay in fara badan oo nolosheeda ka mid ah ku soo qaadatay magaalada Nairobi oo ay hadda ku sugan tahay. Inkastoo ay tahay reer Burtinle, haddana waxa ay nolosheeda sanadooyin fara badan oo ka mid ah ku soo qaadatay dalka Kenya magaalada Nairobi. halkaas ayay ku dhamaysay iskuulkii waxbarashadiina halkaas ayay ku dhamaysay waxna ku baratay. Inkastoo isticmaasho aaladda TikTok, balse gabadhani waxa ay ka soo gashay social media-ha aaladda Facebook muddo laga joogo 2 sano ayaa waxa ay bilowday inay samayso ama ay bilowdo muuqaalo soo gelin. markaasi ma aysan la duubi jirin wax muuqaalo ah saaxiibada ay hadda isla duubaan ee aadka isugu xiran yihiin, balse waxa ay inta badan wax isla duubi jireen gabdho ay saaxiibo yihiin. Inkasta oo aysan dalkii muddo fara badan ku soo qaadan nolosheeda, haddana waxa ay tahay gabar ay ka muuqato diinta Islaamka in si fiican loogu soo barbaariyay, sidoo kale tana ay leedahay dhaqan wanaagsan oo aan ahayn gabdhaha qaar ee quruxdooda ama aan niraahno muuqaalka guud ee jirkooda ku raadiya daawashada ama waxa loo yaqaano views-ka. sanadkii ugu dambeeyay ayuu gabadhan YouTube-keedu bulaalay kadib markii ay bilaabeen inay muuqaalo isla duubaan saaxiibada ay aadka isugu dheer yihiin ee Jack iyo Amin. taasi waxay u sahashay saddexdooduba inay bulaalaan dad fara badanna ku xirmaan, waxaana taasi loo sabaynayaa inay tahay madadaalinta ay waqtiga badan geliyaan. sidoo kaleetona iyaga waa wax waqti iska gelin in ay sharaftooda iyo cisigooda siistaan views. haddii aad doonaysid inaan soo sameyno dad kaleeto oo caana, fadlan ku soo qor qaybta hoose ee commentiga qofka aad rabtid inaan taariikhdiisa baarno si aan u soo helno xog dhammaystiran oo ku aadan taariikhda qofkaasi. mahadsanidin.